inta banaanka noo joogtay daaqadaha taagan in ay maqli waayaanna waanu ka cudur daaranaynaa. runtii maynaan filaynin dad intan la eg in ay imanayaan holkan islihay, laakiin waxaan aragnay maantana noo cad in dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walbo ay joogaan in ay runtii damiirkoodu inuu soo jeedo, diintoodana ay jecel yihiin. ilaahay waxaan ka barinay qalbigiina diinta allaha ku sugo, iimaanka allaha idinku sugo, uurkiinana diinta allaha ku qurxiyo, islaamkana mid idin dhowro allaha ka yeelo. waxa aan u mahad celinayaa runtii oo kulankan inuu dhacona noo suuro geliyey Axmed Nuur Sheekh Axmed Kilimanjaro naanastaas runtii uu leeyahay, iyo runtii ku xigeenkiisa Zubeer Cabdirasaaq Jiir. waa laba dhalinyaro ah, ilaahay ha dhowro ha barakeeyo, reerahoodana allah u barakeeyo. muddo usbuuca ma aanay nasanin inuu khayrkan dhaco, kulankan uu hirgalo ayay u soo jeedeen, meelo badanna ay u mareen, sharciyo fara badan iyo waraaqo fara badanna ay u keeneen. kharashka runtii holka quruxda badan ma aanu qurxoonayn haddaad arki lahaydeen maalmo ka hor, laakiin iyagaa suurageliyey. waxaa kaloo weliba ay u taagan yihiin haddana oo ay noola fadhiyaan. axmed waa ka dhinacayga fadhiye, waxay noogu fadhiyaan haddana inay ammaanka ilaaliyaan, inaan nala soo dhexgelin. maxaa yeelay kulan noocaana tiro intaan la eg meel inay isugu yimaadaan cid ogol ma laha, laakiin ilaahay ka soke, ilaahay fadligii iyagaa inoo suurageliyey. ilaahay waxaan ka baryaynaa ganacsiga ay wataan. axmedna waa xagga securityka ganacsatada islii ayuu madax ka yahay, ganacsatada islii ammaanka ayuu wuxuu ka yahay guddoomiye. ilaahay waxaan ka baryay shaqadiisa allah ku asturo, ammaan ilaahay ha siiyo, nabadgelyadiisa allaha adkeeyo. ilaahay waxaan ka barinay labadan wiil ee nala shaqaynayey, reeray leeyihiinna reerahooda allah u barakeeyo, awlaadooda ilaahay saalixiin ha uga yeelo, ganacsiga yare wataana allah ku ilaaliyo, gacan bini aadan ilaahay ha ka kaafiyo, cimrigoodana caafimaad iyo cibaado dheer allah siiyo. waxaan kaloo u mahad celinayaa walaalkeena Sheekh Saciid Raage iyo Sheekh Maxamuud Markooni oo runtii aan ogahay inaanay waqti haynin oo ay noo ogolaadeen in ay idin soo hor fariistaan. iyagana waxaan leenahay talaabaday soo qaadeen, ilaahay ajri xasanaad maalinka qiyaama miisaankooda ha ugu cusleeyo. reeray leeyihiin reerahoodana allah u xifdiyo, allah u dhowro. ilaahay waxaan ka baryey waa dad aad isu jecel, waxaadna ka dareemaysaan siday u kaftamayeen oo ay u wada qoslayeen. ilaahay waxaan ka baryey wax kala geeya allah ka ilaaliyo, mar walba iyo meel walbo ay joogaanna kuwa nabad ku noolaada allah ka yeelo. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa gabdhaha walaalaheena shaqaynaya tiimkan aad aragtaan, runtii waqti hore yimaadeen oo ay halkan u yimaadeen in ay nidaamka ilaaliyaan. shaqay ka soo tageen, reeray ka soo tageen, gabdhahaas allah dhowro. iyagana ilaahay waxaan ka baryay gabdhahaas reerahoodii ganacsigay ka soo tageen, ilaahay bedelkeeda khayr qaba ha siiyo. waxaan kaloo u mahad celinayaa, waxaa inala jooga ducaad ayaa inala jooga halkan oo gabdho ah, hadalkana dheerayn maayo, iyaga ayaa iiga dambayn doona insha allahu tacaala, iyo qolaha wiilo dhalinyaro ah oo nashiido yaro hal daqiiqo xijaabka runtii ka hadli doona. waxaan intaanan kelimadaydan social mediaha aanan dhihin, waxaan fasaxaynaa waa labadan ducaad Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Saciid meel bay u degdegayaan, kulan kale leeyihiin, aan iska fasaxno insha allahu tacaala. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waanu u ducaynaynaa insha allah si nabada ku taga biidn illahi tacaala. waxaa runtii halkan fadhiya waa Sheekh Yuusuf, masaajidka Salaam 7 sano imaamka ahaa. waa wiilkaas quruxda badan ee aad aragtaan, gabdhaha la bixinaya isagana qaybtiisa. Yuusuf inuu ilaaway ha u malaynin, hal baan iimaansanayaa. walaalayaal kelimad baan rabaa inaan idin gaarsiiyo. marka hore halkan waxaan rabaa
xaawakiin hooyadeen inaanay jooginna waa laga yaabaa laakiin gabdhaheedii baa jooga gabdhihii waxaa jooga walaasheena dhimatay muniish qisiiraan rabaa inaan idiin sheego ay gabar Mombasa degan ay ila wadaagtay wacdi badan ma hayo gabdhihii bay joogaan walaalaheedna waa u malaynaynaa aaway gabdhihii la dhashay ma joogaan gabdhihii muniish la dhashay ma joogaan qaraabadeeda waa joogaan soo maaha saaka gabar baa hurdada iga kicisay Mombasa ayay igala soo hadashay waxay tiri arrin la yaab leh ayaan arkay waxaan arkay anoonan jiifanin oo aanan gam'in laakiin gamaanyoonaya ayaa oo soo yara jeeda ayaa waxaa ii timid hooyaday oo dhimatay hooyadeed baa dhimatay waxaa la socotay bay tiri muniish muna Mustafa ayaa la socotay dhar qurxoon oo cadcad bay siteen dhulka ay joogeenna dhul cagaaran ayuu ahaa aad u dhageysta waxaa hooyaan ku hooyo xaggeed iska hesheen waxay tiri waan nool lahay meel qurxoonna waanu ku noolnahay waanu wada joognaa aniga gabadha waxayse doonaysaa inay kula hadasho waa taan la yaabay waxay tiri haye gabadha marka waan dhaariyey waxay tiri muniish ayaa si toosa iila hadashay waxay tiri ilaahay horta waa ii naxariistay laakiin social mediaha sawiradayda la wareejinayo fiidiyowyaalkayga la wareejinayo aad baan u dhibsanayaaye u sheego dadka intaad aragtaan fiidiyowyaalkayga ha tirtiraana kow waxay kaloo tiri adiga anay isoo eegtay waa gabadha ila sheekaysanaysaa waxay tiri adiga qudhaada fiidiyowyaalkayga waad fiirsataa habeenkiiye iga xafiirsanina iska tirtir gabadhana waxay tiri waa runteedoo waan fiirsadaa waxay kaloo ii raacisay waa naxsanahay way tiri waxay ii raacisay gabar bay magaceeda magacowday fanaanad ahaan jirtay oo ka baxday oo la yiraahdo qaaliladan magacaasa ii sheegtay waxay tiri qaaliladan waan ogahay aniga dartay in ay uga baxday meediyaha markaan dhintay kuwa kalena inay ka baxeenna waan la socdaa waxaad ku tiraahdaan bay tiri yaanay dib dambe ugu noqonin fanka waan cabsaday bay tiri anigii hurdadiian ka soo kacay bay tiri waxaan raadiyey qof aan sheekada la wadaago walaalayaal fariintaas aniga qaan bay igu ahayd inaan idiin soo gudbiyo laakiin waxaan rabaa waxa gabadhaasi aakhiro tagtay allaha u naxariistee ay ka cabanayso waa fiidiyoyaalkii ay duubtay iyadii way dhimatay saaxiibadiin bay ahayd allah u naxariistee waxaan marka rabaa inaan la dardaarmo gabdhaha maanta jooga sida walaalkeena uu inoo sheegayey laayga ku raadinayay jirkooda inay bannaanka soo dhigaan hadhow yaa kaa bixin doona ilaahay baad ku dhaariye geeriduna waa xaq waxa been abuur ah ee social mediaha ka socda waad garanaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa way og yihiin social mediaha wayna ka hadleen allah yiri wajtanibuu qawla zuur ka fogaada gabdhayahow idinkaa yeegaya ka fogaada qowlu zuurka waa maxay waa waxaan ku tirkuteenta waa waxaan barbagandada waa waxaan fisqiga ah waa waxaan macsida ah waxaan ilaahay looga fogaanayo gabdhahan horaadkooda ruuxaya dambeedkooda ruuxaya jirkoodii iyo abuurkoodii bedelaya ku raadinaya quud ay cunaan wajtanibuu qowla zuur dadka wanaagsan ee ilaahay jecel yahay cibaaduraxmaan baa la yiraahdaa markii uu ka hadlayay rasuul ilaahay wuxuu yiri walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama kuwana waqtigooda kullu min zurkan beentan waqti lumiskan baashalkan ana kullu min fisqi ma'si ilaahay kuwan haddii ay arkaanna aanan eegaynin waqti saaraynin ee ka fogaanaya xabiibka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam aan ku gabagabeynaya wuxuu yiri raggii intuu la hadlayay dumarkii alaa unabbiukum biakbar alkabaa'ir ma idin sheega dambi ilaahay laga galo kuwa waaweyn haba la yiri waxa waayu yiri al-ishraaku billah wa uquuq alwalidayn
ilaahoo loo shariig yeela waalidku caasi lagu noqdo wuu jiifay wuu soo fariistay sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu yidhi alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur wuxuu yidhi wararka beenta ah ee la abuurayo wararka beenta ee lagu sheekaysanayo iyo markhaati beenaalayaasha kuwa sheegaraynaya wallahi social media ka hadlaya aad wuu jiifay wuu soo fariistay arrinka inuu weyneeyo wuxuu yidhi kuwa youtube leyda ah wallahi waa youtube leyda warar degdeg ah ayaa la soo qorayaa kulligood saasay ku wada shaqaystaan war degdega waa waxaanan waxba ka jirin waa ku tiri kuteen nin baa la caayayaa ummad baa la caynayaa nacayb baa la abuurayaa ummad baa la kala geynayaa qabaa'il baa la isku dirayaa war degdeg ah ayaa la leeyahay hal saac ayuu fadhinayaa oo u dhididayaa dhaar buu marayaa wuxuu leeyahay war laaygareeya oo sheegareeya oo sabiskaar gareeya gambaleelka furta gaarsiiya ayuu leeyahay eeg ilaahay baan ku dhaarshiiyey rasuulkan wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam calaamadda saacadda waxaa ka mid ah shahaadatu zuur in been ummadda oo dhan ay ku kulanto oo qaarna ay sheegaan qaarna ay sheegareeyaan bal u fiirsada dadka beenta sheegaya ee ilaahay ka furtay fisqiga fidinaya yaa fiirsada laifka kumanaan baa fiirsata laakiin dadka khayrka kaali arag shahaadatu zuur iyo waxaa ka mid ah shahaadadii xaqa ahayd oo la qariyo oo aanan la sheegin oo aanan la eeganin waxaan idin leeyahay gabdhayahow ilaahay horta idin dhowr waa ducayn doonaa nin saxaabi ah ayaa rasuulka u imanaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay rasuul allow saacadda goormay dhacaysaa mata saaca wuu fiiriyey waa nin wanaagsan wuxuu yidhi wamaa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay markaasaa wuxuu yidhi waxba uma aanan diyaarsanin ilaa annii uxibu allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay jacayl ayaan diyaarsaday u kaalay marka xadiiskan inaan idinku dabaqan doonayaa khaasatan inta reer instagram inta reer tiktok inta social mediaha iyo youtube-yada ka ogaadha beentii propagandada wadda maanta rasuulku wuxuu idin leeyahay war reer social media maxaad u diyaarsateen saacadda ninkii wuxuu yidhi waxaan u diyaarsaday ilaahay iyo rasuulkiisa in aan aad u jeclahay wuxuu yidhi abshirayso marba haddaad si qalbiga ilaahay rasuulkiisa u jeceshahay anta maca man axbabta ayaa la yidhi allah waxaad aakhiro la kulmaysaa lagula keenayaa qofkii aad jeclayd anas ibnu malik radi allahu canhu oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi wallaahi bacda alislaam farxad nooga weyn mana soo marin xadiiskan rasuulku uu leeyahay waxaa laydinla soo xashrinayaa qiyaamaha laydinla keenayaa dadkii aad jeclaydeen maxaa yeelay buu yidhi ilaahay baan jeclahay rasuulkaan jeclahay abubakar iyo cumar cusmaanaan jeclahay walow camalkoodoo kale aanan lahayn reer youtubow reer instagramow reer social media dhammaantiin reer youtuberow waxaan rabaa inaan idin weydiiyo saxaabigan jacayl ilaah iyo rasuul buu diyaarsaday idinku maxaad diyaarsateen afkiinana waxaad ka sheegaysaan waa in uu raacaa qalbigiina ilaahay baa idinku dhaariye in yar haddaan idin tusaaleeyo gabadha ilaahay intuu caafimaad siiyey qurux siiyey dabeecad fiican siiyey jir qurxoon siiyey intay soo baxday dukaamadan tagtay soo gadatay make up ilaahay ka caroodo jirkeedii beddeshay nalal soo gadatay ishor dhigtay hees gaal uu qaadayo aan kaadida iska dhaqin urayo qurmoon raste iyo raamoola ah injiroola ah
heeskiisii iyo mid hindi oo mid madow afrikaan ah intay saaratay nalkii ishor dhigtay ruuxaysa horaadkeeda ama dambeedkeeda oo raadinaysa like 15 milyan heshay 20 milyan heshay 30 milyan xabadkeeda ku heshay barideeda ku heshay ilaahay baa ku dhaariyay maalinkay dhimato yaa lala soo xashrinaya madowgii soo maaha anta maca man axbabta xadiis saxiix ah anta maca man axbabta waqtiga yaad ku dhumisay yaad dhegaysan jirtay yaad ku raaxaysataa yaad mar walba eeg waa heese sawaaxiliya hees weliba beryahan hees waxaana dhibay gacmaha sidaan la dhahayo yaa waa isku wada mid hooyadii wax dhashay to aanan waxba dhahin gabadhii waa kaasaa yaa lagula soo xashirinayaa yaa kaa tirtiraya ilaahay baad ku dhaariyey waqti walbaad dhiman karaysaan anta maca man axbabta wuxuu kale leeyahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofka wuxuu ku dhaqani diin yahay saaxiibkii ha eego midkiin qofkuu la saaxiibayo waxaan runtii ku soo horta intaanan wareejinin waxaan rabaa ducooyin fara badan baa la ii soo dhiibay